farxad weyn ayay noo tahay mar kale inaan la wadaagano dhismihii aan hore idin la wadaagnay halka uu maraya iminka dhismihii oo maraya xaalad finishna ama gabagaba ku dhow. dhismahan wuxuu ku yaalay xaafadda Jigjigeer gaar ahaan agagaarka madaxtooyada cusub. dhismahan wuxuu haystay laba wajahadood muuqaal ahaanna sidaan horeba idinku sheegnay wuxuu eekaan doonaa dhisaynkan hore aan la wadaagnay. iminkana waad qiyaasi kartaa inuu u soo eegyahay inuu ka duwan yahay. bit by bit ayaan u raacnay aad iyo aad ayay farxad noogu tahay inuu dhismihii aan dhisaynay iyo dhisaynkii aan macmiilka tusnay aan u sameynay inay isu eekaadeen oo aan la kala garan karin. dhismahan finishingkiisa qurxintiisa iyo wixii soo dhan si fiican ayaan uga shaqaynay. hadda waxaynu geli doonaa gudaha ayaynu u geli doonaa insha Allah dhismaha gudihiisu halkan waxa weeyaan waa albaabkii laga geliyay albaabku waa slidekii cararayay. haddii aad u fiirsato finishin ahaan qaabkaan u sameynay waad aragtaa deyrka iyo waxyaalahaasaan u qurxinay waad dareemi karaysaa gacanta lagaga shaqeeyey. halkan markaad kasoo gashid halkaas waa baarkinkii gaadhigu uu gelayay. marka dee cadeed iyo kuleele xilada waa la iskaga nasan karaa waa la iska fadhiisan karaa. waxyaalaha daaqadda halkaa kasoo jeeda iyo wixii ka sheeyaana waa surfaceki iyo kitchadii iyo qol la seexday iyo laundryadii iyo waxyaalo badan oo surfaceka qaybtii surfaceka guriga weeyaan qaybtaasi. haddaad xaggan u fiirsato gurigu aad buu qurux badan yahay maasha Allah weeyey. areadan oo kale waxaan ugu talagalay parkina waa loo isticmaali karaa laakiin beer baanu ka dhigaynaa. imika waxaan talagalnaa inaan guriga gallo walow waxaa niman yahay oo shaqa ka socoto dhinaca baan ka gelinaa barandahana aad iyo aad buu weyn yahay waa waasac la iska fadhiisan karo. daaqadan barandaha kusoo jeedaana waxa weeyaan daaqadii fadhiga daaqadaasaan ka eegaynaa. qolkan imika qolkii fadhiga waxaa ku socda decorationka gypsum boardka aad iyo aad buu qurux badnaan doonaa insha Allah. haddii corridorka ama daaradda aad eegtidna iyadana sidoo kale waxaa ka xidhan sakhaalad oo iyadana lama geli karo gypsum boardka waa iyadana ka socda. kanina waxa weeyaan suuliga hurdada waa suuli aad iyo aad u waasaca weli marmarkiiba ka dhiman only waxa yaala babskin baa yaala. haddaynu gallo qolka hurdada aad buu qurux badan yahay maasha Allah. gypsum boardkaas aan ku xidhnay marka leerarka iyo decorationada lagu xidho ayuu muuqaalkiisa qurux badan soo bixi doonaa haddii lahayd maasha Allah. hurdadu waxay leedahay daaqad aad iyo aad u weyn oo iftiin fiican iyo leerba ay ka heli doontaa insha Allah. sariirta iyadana waxaa la dhigi doontaa soo jeedka dhinacaas la dhigaya haddii lahayd maasha Allah. dhinacan kalena waxyaalaha kale looga baahnaa la dhigaya. haddii aynu guriga dibadda ka eegno waxaan isu kiin barbar dhignay dhisaynkii guriga ee aanu xafiiska ku sameynay iyo dhismihii socday. bal qiyaas haddii uu jiraan wax farqiya iyo haddii aanu asiibnay oo sidiisii aanu u wadno. annaga farxad ayay noo tahay inaanu shaqadayada kusii bislayno marka hore xafiiska dhexdiisa oo aanu haba yaraadee wax isbedel aanu ku dhicin dhisaynka aanu sameyno iyo shaqada aanu saytka ka qabanano oo macmiilka wixii markii hore aanu tusnay ee aanu ballan qaadnay aanu sideedii u fulinayno. farxad bay noo tahay taasi. dhammaan cid kasta oo jecel inay dhismo dhisato ama nashqad qurux badan samaysato waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qiimo macquula. nagala soo xidhiidha lambarada shaashada ku qoran. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.